agaasimaha maamulka komishanka xakamaynta ayriska jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Xinni oo ka hadlayay munaasabad ay mid kamid ah beelaha dega gobolka Togdheer ay ku shaacinayeen inay taageersan tahay xisbiga kulmiye isla markaasina uu goobjoog ka ahaa musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi ayaa goobtaasi ka sheegay in guud ahaanba maamulkii iyo kala dambeyntii xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ee uu ka tirsan yahay uu galay habacsanaan iyo jilicsanaan aad u baahsan kala dambeyntii iyo nidaamkii dawladnimo waxa galay jilic baa galay sababtu waxay doontaan noqoto waa xaqiiqa agaasima Cabdikariin Xinif ayaa sidoo kale ka waramay sida ay ula muuqatay siyaasadda musharax Muuse Biixi Cabdi waqtigii uu ka tirsanay isbahaysigii xisbiga kulmiye ka baxay waxaanu ku tilmaamay saaxiibadiisii xisbiga wadani ku biiray inay xisbigaasi fadqalado ka dhex abuureen mariyada Muusaan yardibca wax alla iyo xabad wanaag leeyahay ma baaqi jirin ومحسن ولوه وحن فرق شري وحن لا فرق لهين وإيش قفل وحكوه يمرك عدالي آلي شري أي نوع عصر وانوا إنه نظامك يشرعك كوء كان دونه وفلين دونه وأنها بحسنا نشرين أني أولا واحد شري لمن أنا صاحب باهين وحسب المرة إنت بلايا وردتما تكيا عايو إما كان فرق طلبه وطريق لك علي حزب الإسلام وعليه وتوجد الوطني لا يبغى شيء لا بقولوا والله ما مرق شيء قولوا كل يكي عليه قولوا ما نرويتوا لي ومسهل كله لا بقول فقرا لي ولا كله ugu dambeyntii Cabdikariin Xinif ayaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye ka codsaday in haddii uu xilka ku guuleysto uu mas'uuliyiinta xilka uu dhiibayo hantidooda diiwaan geliyo waxa aan gudoomiyaha xisbiga ka codsanaya doorashada insha Allah ku guuleysanaya markuu ku guuleysto رجل خلك أولي بالدورة أنت خلك أولي منه وبهتير شيء ودي واجريه تاوي كذا بيت وحلو دي واجريه وحكي بدل وابوه المدل بوي وحاي من المدل الله يا وهنتي قرك الله بوي يا المدل الله يا محمد حسن ديرية محمد شوكر ورالك تلفزيون كعالمي إريال تيفي برعو